nidaamka casriyeynta nootayooyinka ee qabashada dakhliga cashuuraha kala wareejinta iibka hantida ma guurtada ah iyo guurtada intaba wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duulaysa baahida loo qabo nidaaminta iyo sugidda dakhliga cashuuraha kala wareejinta iibka hantida isla markaasina ka shidaal qaadanaysa kulamadii isku xigxigay ee ay wada yeesheen mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda cadaaladda iyo guddiga nootayooyinka waxa ay bulshada iyo bahda nootayooyinkaba ay la socodsiinaysaa in wasaaradda maaliyaddu ay yegleeshay hannaan iswada oo casri ah kaas oo lagu maarayn doono qabashada dakhliga cashuuraha ku waajibay marka hanti la kala iibsado haddaba waxaa nootayooyinka lala socodsiinayaa arrimahan soo socda kow dhammaan nootayooyinka waxaa la farayaa inay adeegsadaan nidaamka wasaaradda maaliyadda ee qabanaya cashuuraha kala wareejinta laba in nootayooyinku ay reebaan cashuurta kala wareejinta iyagoo adeegsanaya sistamka cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay yegleeshay laga bilaabo bisha Abriil 2024 saddex inay kaliya sharci tahay warqadda heshiiska ee laga daabaco nidaamka cusub ee wasaaradda maaliyadda waxaa kale oo lala socodsiinayaa bulshada gaar ahaana cashuur bixiyaasha qodobadan soo socda kow cashuurta kala wareejinta dhulka dhismaha baabuurta iyo wixii la halmaala waxaa la bixin doonaa marka uu dhacayo heshiiska iibka hantidu laba in cashuurta kala wareejinta dhulka dhismaha iyo baabuurta lagu dhex bixin doono xafiiska nootaayada dhexdiisa saddex in cashuurta kala wareejinta dhulka dhismaha iyo baabuurta lagu bixin doono habka casriga ah ee loo yaqaana e-payment ee ay samaysay wasaaradda horumarinta maaliyaddu wixii faahfaahinaya intaas dheer kala xidhiidh nambarrada shaashadda kaga muuqda